deegaanka dharkingeeya oo ka tirsan gobolka Sool waxa ka dhacday munaasabad aad u ballaaran oo lagu caleema saarayay garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo kamid ah garaadada waaweyn ee gobolka Sool. munaasabadani waxa ka soo qayb galay uqaal salaadiin isimo dhalinyaro aqoon-yahan haween iyo marti sharaf kala duwan oo ka kala yimid geeyiga afka Soomaaliga lagaga hadlo. telefishinka qaranka Somaliland ayaa dareenkooda weydiiyay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay iyo bulshada qeybaheega kala duwanaa dareenkooda ku aadan xafladda caleema saarka garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ahna afayeenka xukuumadda mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore iyo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye. caleema saarka garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo aan isleeyahay waa salaadiinta runtii waaweyn ee gobolka Sool gaar ahaan deegaankan xukuumad ahaan aanu halkan u nimid inaanu runtii aniga waftigan hogaaminayaaba inaanu kaga qayb galno shir. waxaan u aragnaa madalaadii aad u fiican dalka iyo dadku iyo ummadda haddaanu waxa aanu haynaa dalka waxa weeye inaanu nabadgelyada iyo kala shaqayno iyo hawsha qaranka aanu hayno. ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay sanadkiisa iyo waqtigiisaba iyo cid kastaba hambalyaanu leenahay. ninkanna waxaan u maleynayaa inuu ka ballaadhnaan doono garaado badan maadaama uu dad badan xidhiidhiyo ama uu meelo badan ka soo jeedo oo aan isleeyahay waa reer Jabuuti oo waa reer Hargeysa oo waa reer Lascaano runtii inta aan garanayo. marka waxaan isleeyahay waa tallaabo runtii iyo waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa inuu kuwii hore ka duwo. waxay caddaynaysaa ummaddu sida iskugu timid iyo kakacay iskugu timid inay adkaatay qarannimadii iyo walaalnimadii ummadda jamhuuriyadda Somaliland iskugu keenaysay qarankeyga ku hananaysay baa halkan ka muuqda. dhankalena waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Indho oo ka mid ah golaha guurtida Somaliland iyo Yuusuf Cismaan Garas oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradaha waxbarashada iyo warshadaha ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo mas'uuliyiin kale waxaanay dhammaantood soo dhaweeyeen xafladda caleema saarka garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo ka dhacday deegaanka Dharkingeeyo. garaadka khayr qaba intaasoo bini'aadmi u timaada annagu xalay oo dhan 1 kiiloomitir baan u soo soconay. insha Allah waxaanu rajaynaynaa kii lagu baraarobo ee lagu barwaaqoobo inuu noqdo garaadkii nabadda inuu noqdo nabadii inuu adkeeyo. hore ilaahay baa mahadda iska leh inaynu nabad halkan ku joogno oo aad iyo aad baynu ugu xamdinaqaynaa. dareenkayga waxaad garan kartaa anigoo Hargeysa ka soo kicintay shalay duhurkii ilaa ay halkan soo soconnay. waa madal aad u qurux badan, waa madal ku xasuusinaysa dhaqankii wanaagsanaa ee ummadda Soomaaliyeed lahayd inuu halkan weli ku sii hadhay oo ahayd farxadda iyo iska dambeynta iyo ixtiraamka iyo ka soo qaybgalka. runtiina waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa garaadka cusub xilka fuulaya oo runtii nabadeyn badanna faamiligiisa iyo qoyskiisa muddo badan ay arrinta ku soo shaqaynayeen isaguna dariiqii aabihii iyo dariiqii awiyadii inuu mari doono. waxaan ku cabiri karaa shucuurteeda runtii waa maxay ka mid tahay maalmaha ciid oo kale maalin igu farxad badan oo kale ka mid. alxamdulillah waad mahadsantiin TV-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland. alxamdulillah rabbil caalamiin ilaah baa mahaddaas oo dhan leh. maanta Dharkingeeyaan joognaa hawshuna si wacan bay u socotaa. garaadka waan u ducaynaynaa maanta kale ducoon buu mudan yahay. waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule iyo Cabdiqani Xasan Faarax Gadari telefishinka qaranka Somaliland deegaanka Dharkingeeya oo ka tirsan gobolka Sool.